Allah subxaanahu wa tacaala kaama doonayo waxaan ahayn noqosho iyo inaad raadiso jidka u geynaya. Allah ugu noqo sujuud, toobadkeen, istighfaar iyo waxbixin. Garaac iridiisa kadibna dhowr caafimaad. Ma jiro dhakhtar dunidan jooga oo ku bogsiin kara haddii aanan Allah ku bogsiinin. Lamana soo helayo dhakhtar helaya cudurkaaga haddii aanan Alle doonin. Nin hantiila ayay fadhiisatay keli, kadibna ubadkiisii ayaa u soo qaaday Masar si loogu geliyo keli kale. Wiilashii odayga ayaa kula heshiiyey qoys danyar ah oo degan Masar inay kelida inantooda yar kaga iibsadaan 100,000 oo riyaal. Subaxii dambe ayaa la isugu yimid dhakhtarkii. Haddaba ka hor inta aanay bilaabanin hawshii kala gelintu, ayuu odaygii codsaday in uu la kulmo inantan yar ee u saaraysa kelideeda. Si xishood iyo xushmad leh ayay ugu soo gashay odaygii, waxa uuna weydiiyey, maxaa kugu riixaya inaad ka iibiso kelidaada duqsideyda oo kale ah? Waxay igu warcelisay baahi. Qoyskaygu waa sabool, walaalahay jaamacad ayay dhigtaan, aniguna xil baa iga saaran. Hadalkani odaygii waxa uu ku noqday musiibo ilowsiisa dhiiggii sunta ahaa ee ku socday jirkiisa. Waxa uuna isweydiiyey, suuragal ma tahay inuu qof ka maarmo qayb ka mid ah jirkiisa si uu u noolaado? Si degdeg ah ayuu u codsaday in loogu yeero wiilashiisa. Markii ay u soo galeen wiilashii, odaygii waxa uu faray inay ku celiyaan dalkiisa, sababtoo ah waxa uu hakiyey hawshii u yimid. Sidoo kale waxa uu faray in gabadhan yar la siiyo 100,000 ee riyaal. Kadib loolan adag oo ay badh ka mid ah ubadkiisii ka caroodeen, danistiisii ayay fuliyeen. Amiintii uu u noqday dalkiisa sidii dhaqanku u ahaydba, waxa uu tagay dhakhtarkii ka sifeyn jiray kelida. Baaris kadib waxaa soo baxday inay shaqaynayso kelidiisu. Awoodda uu wax ku bogsiiyo boqorka boqorada uma baahno qalin, waayo waa boqor oo xagga sare ayuu ka soo firiyaa addoomihiisa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qof buka ayuu bogsiiyaa, mid dhiban ayuu ka farxiyaa, mid socdaalay ayuu soo celiyaa, halka mid dhaawacanna uu dhayo. Haddaba walaal aan u noqono xaggiisa.